Filimkeena waxa uu ku bilaabanayaa maxkamad dad badan ay buuxaan qof walbana wejigiisa waxaa ka muuqdo caro iyo murugo sababtoo ah maanta waxaa la xukumayaa nin serial killer ah oo lagu magacaabo Kim. Booliskana waxay ku tunsan yihiin inuu dilay 7 qof laakiin cadeymo la'aan darteed maxkamaddu waxay ku xukuntaa kaliya hal dil. Halkii laga filayay dil toogasho Kim waxaa lagu xukumayaa 15 sano oo xabsi ah. Go'aankaasna wuxuu qalbi jebinayaa dhammaan qoysaskii dhibanayaasha. Dadka si weyn u dhaawacmayna waxaa ka mid ah gabar yar oo lagu magacaabo Nam Hee-jo. Aabaheedna wuxuu ahaa dambi booliis ah uu baarayay kiisaska Kim. Haween mugdi ah isagoo gurigiisa ku soo laabanaya ayuu Kim ka soo weeraray meel mugdi ah isagoo cunaha ka jaray. Inkastoo dhaawac halis ah uu soo gaaray haddana wuxuu isku dayayaa inuu guriga gaaro si uu gabadhiisa u arko markii ugu dambeysay. Daqiiqado yar kadib ayuu gudaha guriga soo galaya isagoo dhiig baxaya. Halka gabadhiisa yar Hee-jo ay hurday iyadoo aan waxba ka ogeyn. Aabaheedna wuxuu ku dhintaa guriga dhexdiisa gabadhiisana ma helin xitaa fursad ay ku macsalaamayso. Subaxdii xigtay saaxiibkiisa Dictator Fiyanka ayaa guriga yimaada wuxuuna arkaya Hee-jo oo si farxad leh u diyaarinaysa dhalashada aabaheed iyadoo aan ogeyn inuu mar hore dhintay. Muuqaalkaasna wuxuu noqdaa mid qalbi jebinaya waxaana halkaas ka bilaabanaya nolol ay murugo iyo argoosi ku jirto. Muddo 15 sano ayaa kasoo wareeganaysa dhacdada Hee-jona hadda waa gabar weyn. Laakiin wiilka ma bogsan wixii ku dhacay yaraanteedii hooyadeedna waxay ka tagtay qoyska kadib markii ay nin kala guursatay. Sidaas darteed Hee-jo waxaa soo korsaday Dictator Fiyanka oo noqday qofka kaliya ee daryeela waxayna hadda ka shaqaysaa saldhig booliis ah iyadoo qabata shaqo yar oo nadiifin ah. Waxaana dhammaan askarta iyo saraakiisha halkaas jooga ay si weyn u ixtiraamaan maadaama ay tahay gabadhii dambi baaraha la dilay. Dhanka kale maalintii ugu dambeysay ee xabsiga Kim ayaa la gaarayaa. Albaabka xabsiga markuu ka soo baxona qofka ugu horeeya ee sugaya waa Dictator Fiyanka. Yangina ma ilaaweyn wixii dhacay 15 sano ka hor isagoo xanaaqsan ayuu cunto wejiga kaga tuuraa. Wuxuuna ugu digayaa haddii mar kale wax cadeen ah lagu helo inuu si dhaqsi ah u hubin doono marka lagu xukumo dil. Laakiin Kim muu muuqda ninka shaleynaya wixii uu sameeyay wuxuuna si qabow u qoslaya isagoo weydiinaya Yang inuu weli rumaysan yahay inuu dilay dhammaan dadkaas. Markii Kim magaalada dib ugu soo laabto booliiska oo dhan waxay galayaan feejignaan sare. Saraakiishan waxay ka baqayaan in dilalkii mar kale dib u soo bilaabmaan. Sidaas darteed Yang waxaa lagu amray inuu Kim saacad kasta daba socdo. Laba dambi baare ayaa loo xil saarayaa inay si qarsoodi ah ula socdaan dhaqdhaqaaqiisa. Inta ay gaariga ku jiraan ayay ka hadlayaan qaabka uu Kim dadka u dili jiray markii hore. Mid ka mid ah ayaa sheegaya inuu ka jebin jiray gacmaha iyo lugaha dhibanayaasha si aysan u baxsan. Kadibna wuxuu wejiga kaga dabooli jiray bac ugu dambeyntiina wuxuu qorta ugu xiri jiray xarig eyda lagu haga ilaa ay ka dhintaan. Waxyar kadibna Kim wuxuu hoteelka keenaa haweeney uu lacag ku soo kaxaystay. Habeenkaas dareenkiisii dilka ayaa dib u soo kacaya wuxuuna bilaabayaa inuu bac wejiga uga geliyo haweeneydii isagoo ku dhow inuu mar kale dil geysto. Laakiin ilbiriqsi ugu dambeeyay ayuu istaagaya wuxuuna dareemayaa in boolisku banaanka ka daawanayaan. Haweeneydiina cabsi darteed ayaa halkaas ka soo cararaysa iyadoo ku dhaaranaysa inaysan mar dambe ninkaas u noqon doonin. Laakiin Kim iyo boolisku ma oga in qof kale uu meel fog ka daawanayay wax walba. Qofkaasna waa Hee-jo iyadoo qorsheedu yahay inay disho haweeneyda iyo ninka waday kadibna dambiga dusha ka saarto Kim si loogu xukumo dil. Laakiin ka hor inta aysan ficil sameynin nin kale oo qarsoon ayaa si lama filaan ah u soo baxaya. Wuxuuna si arxan daro ah u dilayaa labadii qof. Hee-jo oo meel fog ka arkaysa ayaa argagax ku daawanaysa iyadoo la yaaban qofka kaga hormaray qorshaheeda. Waxayna halkaas ka fahmaysaa in ciyaarta hadda kasii qoto dheer tahay sidii ay filaysay. Subaxdii xigtay booliisku waxay helayaan meydadka haweeneydii iyo ninkii la socday. Yangina markiiba wuxuu rumaysan yahay inuu Kim ka dambeeyo dilalkaas inkastoo askartii daba socotay ay sheegayaan inuusan hoteelka ka bixin habeenkii oo dhan. Kimna waxaa loo kaxeynayaa saldhigga booliiska si su'aalo loo weydiiyo. Laakiin sida caadada ahayd wuxuu u muuqdaa mid degan oo aan wax cabsi ah qabin. Wuxuuna si degan u sheegaya in haweeneyda hoteelka ka baxday iyadoo nool islamarkaana uusan wax shaqo ah ku lahayn dil ka dhacay. Cadeen la'aan darteedna boolisku ma awoodayaan inay xiraan sidaas darteed waa la sii daynayaa. Markuu ka soo baxaya saldhigga Kim si kamaha ayuu qof ugu dhacaya albaabka hortiisa. Qofkaasna waa Hee-jo Kimna markuu ka caawinayo inay istaagto ayuu arkayaa magaceeda. ilbiriqsigaas Hee-jo jirkeeda dhan cabsi iyo naceeb ayaa qabsanaya sababtoo ah markii ugu horeysay ay si toos u taabanaysaa gacanta ninkii dilay aabaheed. Markuu Kim baxo kadib Hee-jo waxay si degdeg ah ugu cararaysaa musqusha. Biyo kulul ayay gacmeeda ku dhaqaysaa si xoog ah iyadoo isku dayaysa inay iska tirto dareenkaas wasaqda ee daawashadiisa. Laakiin haweenkaas dhibaatada Hee-jo halkaas kuma eka. Waxay booqanaysaa guryo hooyadeed halkaasna waxay ku arkaysaa ninka hooyadeed qaba oo garaacaya. Waana nin qamaar badan oo si joogto ah u dhibaateeya hooyadeed. Hee-jona waxay ku sugaysaa banaanka. Markuu ka soo baxo guriga ayay hor istaagaysaa iyadoo weydiinaysa sababta uu hooyadeed sidaas ugu dhibaateeyo. Laakiin ninku halkii ku xishoon lahaa wuxuu ugu hanjabayaa inuu dili doono haddii ay mar kale arrintiisa soo farageliso. Dhammaan xanuunkii Hee-jo sanadaha badan soo ururinaysa ayaa hal mar ku kacaya. Waxayna dhagax weyn ka soo qaadanaysaa dhulka kadibna si arxan darooha ayay madax uga garaacaysaa ninka ilaa uu ka dhinto. Waana markii ugu horeysay nolosheeda Hee-jo ay qof dishay. Subaxdii xigtay Kim wuxuu arkayaa askartii daba socotay oo gaariga ku dhex hurda.
wuxuuna Jajasa uu sheegaya in isaga ilaalin waayo isagoo u sheegay in laga yaabo inuu qof dilo iyagoo hurda. Waxaana kadibna isagoo orda ayuu kusoo beegmaya goob ay dad badan buuxaan. Markuu si fiirin wax uu arkaya meydka ninkii Hiju dishay. Kiina markii buu shakinaya wuxuuna ka baqayaa in dilkaas markale dusha laga saaro. Intuu dadka eegaya silma filaan ah ayuu arkaya Hiju oo meel taagan wejigeedana qayb uu qarsan yahay. Balse wuxuu dareemayaa inay wax qarinayso wuxuuna isku dayayaa inuu daba galo. Laakiin Hiju si caqli badan ay ugu baxsanaysaa. Dhanka kale booliiska markale waxay dil ku tuumayaan Kim maadaama uu yahay dilkii saddexaad iyo markii uu xabsiga ka soo baxay. Yankina wuxuu aaminsan yahay inuu markale bilaabay dilalkii. Laakiin musiibo kale ayaa dhacaysa. Hooyada Hiju markii loo sheego geerida ninkeeda murugo iyo jahwareer ayaa qabsaday iyadana islaawinkaas ay isdilaysaa. Markii Hiju guriga timaadana waxay arkaysaa meydka hooyadeed. Halkaas ayuuna qalbigeeda ku burburaya waxayna ogaanaysaa in ficilkii xanaaqa ah ay ku dishay ninkaasi uu sababay dhimashada qofkii kaliya ee ugu haray qoyskeeda. Iyadoo weli murugadaas ku dhex jirta sheekadu waxay soo bandhigaysaa qofka dhabta ee dilay haweeneydii iyo ninkii la socday. Ninkaasna waxaa lagu magacaabaa Misu waana nin hilibka ka shaqeeya oo leh dukaan yar oo hilib lagu iibiyo. Isaga ayaana ahaa qofkii qarsoodiga ah ee Hiju habeenkaas aragtay. Laakiin waxa wayaabka badan ayaa ah in Misu uusan ka baqaynin Kim xitaa wuxuu go'aansanayaa inuu dilo. Habeenkii ayuu si qarsoodi ah ugu tagaa hoteelka uu Kim degan yahay. Laakiin Kim wuxuu dareemayaa inuu qof ku soo socdo isagoo mindi sita ayuu ku dhuntaa gudaha musqusha. Markii Misu gudaha soo gal Kim ayaa silma filaan ah u soo weeraraya gacantana ka mudaya. Laakiin ka hor inta aysan dagaalkoodii sii socon dictator fiyaanka ayaa albaabka soo garaacaya. Kim si degdeg ah ayuu dibadda ugu baxaya si uu ula hadlo Yang. Halka Misu uu gudaha musqusha ku dhuumanayo. Yangina wuxuu dareemayaa inay wax qaldan jiraan laakiin ka hor inta uusan wax ogaanin Misu si qarsoodi ah ayuu meesha ugu baxsanaya. Habeenkaas kadibna Yang iyo Kim waxay isla fariisanayaan meel ay wax ku cunayaan. Yangina wuxuu markale isku dayayaa inuu runta ka helo dilalka cusub. Laakiin Kim wuxuu si degan u sheegayaa sirka si xun wax walba. Wuxuuna qiranayaa inuusan dilin 7 qof oo kaliya balse uu dilay 15 qof. 8 kanan meydadkooda aan weligood la helin. Yangina cardarteed ayuu dhalo madax kaga dhufanaya Kim. Wuxuuna ku sigtaa inuu meesha ku dilo. Laakiin Kim isagoo dhiigbaxay ayuu ku qoslaya wuxuuna Yang ku dhahayaa waxa laga yaabaa inaad adiguna ku dambayso sidii saaxiibka hore. Hadalkaasna wuxuu sii xoojinayaa naceebkii u dhexeeyay Yang iyo Kim. Inkastoo Kim uusan qirashadiisa rasmi ah uga sheegay warbixinta booliiska. Haddana Yang wuxuu ogaanayaa in ninkani weli yahay sidiisii hore aan waxba iska bedelin. Dhanka kale Hiju weli waxay ku jirtaa murugo iyo qoomamo. Geerida hooyadeed ayaa ku khasbaysa inay dib ugu laabato dhammaan xogihii ay sanadaha badan ka ururinaysay dilalkii hore ee Kim. Markay si qoto dheer u baarto kiisaska waxay ogaanaysaa arrin aan cid kala dareemin. Taasoo ah in qaababka dilalka loo geystay oo dhan aysan isku mid ahayn. Qaar ka mid ah dhibanayaasha waxaa loo dilay si ka duwan kuwa kale. Markii ay xogta isbarbar dhigtay Hiju waxay ogaanaysaa xaqiiqo cabsi leh. Waxaa jiray 2 serial killer ma ahayn hal oo kaliya. Midkood wuxuu ahaa Kim kan kalena waa ninka hiliblaha ee lagu magacaabo Misu. Sidaas ayay Hiju ku fahmaysaa in dilalkii 15 sano ka hor aysan fulin gacmo isku mid ah. Sheekaduna markaas waxay dib ugu noqonaysaa waayihii hore. Kim iyo Misuna waxay ahaayeen saaxiib ku koray xarun agoomo ah. Yaraantoodina waxay si wadajir ah u dhibi jireen xayawaanka yaryar. waxaana si tartiib ah ficilkaas uu isugu bedelay jacayl ay u qabaan dilka. Muddo kadibna waxay bilaabeen inay dadka bartilmaameedsadaan. Laakiin saaxiibtinimadooda ma sii waareen booliiskuna markii ay sii baarayeen dhaqdhaqaaqii Kim kadib markii uu ka soo baxay xabsiga waxay ogaadeen inuu marar badan wacay hal nambar. Lambarkaasina wuxuu ahaa kan Misu. Markii la sii baaro xogtan waxaa la helayaa sir kale oo weyn. taasoo aan 15 sano ee la soo dhaafay qofkii booliiska siiyay xogtii horseeday qabashada Kim inuu ahaa Misu. sababtana waa Kim markii uu dilay gabadhii uu Misu jeclaa. Markii uu ogaaday waxa dhacay Misu waxa uu go'aansaday inuu saaxiibkiis u diro xabsi. tan iyo maalintaasna saaxiibtinimadooda waxay isu bedeshay cadow isa sugaya. Markii Kim ogaada xaqiiqadan wuxuu si toos ah uga tagaa dukaanka hilibka ee Misu. labadooda indhood ayaa isqabta kadib sanado badan. Kimna waxa uu weydiinayaa sababta uu u qiyaamay. Misuna wuxuu si degan ugu sheegayaa in gabadhii uu jeclaa ay sababtay wax walba. laakiin Kim wax qoomamo ma muujinaya taa beddelkeedana wuxuu ku dhaartay inuu ka dhigi doono Misu nin maalin kasta geeri baryaaya. kadibna meesha ayuu ka baxayaa laakiin iyadoo labada dile ay is ugaarsanayaan qof saddexaad ayaa qorshe kasii khatar badan diyaarinaya. qofkaasna waa Hiju waxayna soo iibsanaysaa xariga eeda lagu hago. kaasoo ah qalabkii caanka ah ee Kim ku dili jiray dhibanayaashiisa. sidoo kale waxay ururinaysaa dhalooyin badan oo jajaban. habeenkii Misu markuu guriga kusoo laabto wuxuu galayaa dabay si xirfad leh loo diyaariyey. dhulka oo dhan waxaa lagu daadiyey muraayado jajaban iyo biyo. Hiju ayaana sugaysa ilbiriqsi kadibna waxay ku tuuraysaa fiilo koronto leh. biyihii iyo muraayadihii iyo korontadii ayaa jirka Misu wada qabsaday wuxuuna ku dhacayaa dhulka isagoo la gariiraya xanuun daran. waxyar kadibna wuu dhimanayaa.
laakiin Hijo halkaas kuma joogsanayso qorshaheeda dhabta ahna hadda ayuu bilaabanaya. Waxay qaadaysaa meydka Misu waxayna geynaysaa hoteelka Kim. Kadibna waxay wejiga ugu dubtaa bac qoortana waxay ugu xirtaa xariga eeda lagu hago si ay ugu ekaato mid ka mid ah dilalkii hore ee Kim. wax walbana waxay u diyaarsan yihiin in dambiga dusha laga saaro Kim. markii ay shaqadaas dhammayso Hijo waxay ku dhuumataa gudaha qolka iyadoo sugaysa qofkii ugu muhiimsanaa inuu soo laabto kaas oo ah Kim. markii Kim dib ugu soo laabto hoteelkana wuxuu markiiba dareemayaa in wax khaldan jiraan. gudaha qolkana wuxuu ka helayaa meydka Misu oo loo dhigay qaab si toos ah u eg dilalkiisii hore. wejigana waxaa ugu dubnaa bac qoortana waxaa ugu xirnaa xarig eeda lagu hago. ilbiriqsiyo gudoodna Kim wuxuu fahmayaa waxa socda oo ah in qof isku dayaya inuu dusha ka saaro dilka Misu. laakiin ka hor inta uusan wax talaabo ah qaadin Hijo ayaa kasoo bixisay meel ay ku dhuumanaysay iyadoo aan wax hadal ah dhihin ayay mid dhabar kaga mudaysaa meel u dhow laf dhabarta. Kimna xanuun daran ayuu dareemayaa. Hijona waxay u sheegaysaa in dhaawacaasi uu yahay mid halis ah haddii uu dhaqaaqana laga yaabo inuu dhiigbax u dhinto. sidoo kale waxay u sheegaysaa in nolosheeda oo dhan ay ku bixisay hal dadaal oo kaliya taasoo ah in maalin uu mutaysto ciqaabta dembiyadiisa. Kim oo weli isku dayaya inuu xoog muujiyo wuxuu ku yiraahdaa inay disho haddii ay awoodo, laakiin Hijo waxay leedahay qorshe kasii xun geerida waxayna u sheegaysaa inay doonayn dhimasho degdeg ah taa beddelkeedana ay rabto inay dib ugu laabto xabsiga oo lagu helo dembi cusub kadibna lagu xukumo dil iyo in maalin kasta uu tiriyo inta ka harsan geeridiisa. kadibna Hijo si degan ayay meesha ugu bixaysaa iyadoo Kim ugu tagaysa qolka dhexdiisa iyo meydka Misu. waxaar kadibna Kim miirkiisa ayuu dib u helayaa. isla waqtigaasna wuxuu maqlayaa codadka baabuurta booliiska oo soo dhawaanaya wuxuuna fahmayaa in haddii meesha lagu qabto wax walba ay dhammaan doonaan. dhanka kale booliiska ayaa soo gaaraya goobta markay gudaha galaan waxay helayaan meydka Misu iyo raadad dhiig badan leh. Yangina markiiba wuxuu fahmayaa in Kim dhaawacmay balse weli nool yahay. booliiska oo dhan waxay bilaabaan inay qolalka mid mid u baaraan. intii ay hoteelka baadigoobayaan waxay galayaan qol ay ku jiraan nin iyo gabar dhaawacan. markii hore waxay u maleynayeen inay yihiin dhibanayaal u baahan gargaar degdeg ah. labadoodan waxaa lagu qaadayaa ambalaas laakiin Yang indhihiis waxay qabanayaan waxaan caadi ahayn taasoo ah dhiig weli ka qubanaya sariirta hoosteeda. markuu hoos fiirin wuxuu arkayaa wax argagax leh meydka dhabtaha ee ninka gabadha la socday ayaa lagu qariyay sariirta hoosteeda. ninkii loo maleeyay dhibane ma ahayn dhibane wuxuuna ahaa Kim oo si xirfad leh isku ekaysiiyo qof dhaawaca si uu ugu baxsado hoteelka. markii ambalaas dhaqaaqda askari ayaa isku dayaya inuu caawiyo gabadhii la socotay laakiin Kim silma filaan ah ayuu uga kacayaa sariirta ilbiriqsiyo gudahood ayuuna ku dilayaa askarigii iyo gabadhiiba kadibna meesha ayuu ka baxsanayaa. subaxdii xigtayna saldhigga booliiska wuxuu isku bedelayaa meel jahwareer badan. Kimna wuxuu mar kale ka baxsaday gacanta booliiska. saraakiisha sarena waxay cadaadis xoogan saarayaan Yang iyagoo ka dalbanaya in Kim sida uu dhaqsiyaha badan loo qabto ka hor inta uusan qof kala dilin. dhanka kale Hijo waxay weli rumaysan tahay in qorshaheedii guuleystay iyadoo taas iminsan ayay isku diyaarinaysaa safar ay ku aadayso tartan dagaal oo ka dhacaya London iyadoo moodaysa in dagaalka 15 sano ay sugaysay ugu dambeyn dhammaaday. dhanka kale Kim markuu ka baxsado hoteelka wuxuu si toos ah u laabanayaa gurigii Misu. halkaas ayuu si taxadar leh u baarayaa goobta wuxuuna arkayaa muraayadihii jajabnaa iyo dabankii korontada ahaa ee lagu dilay saaxiibkiisa hore. markuu qaybaha dhacdada isku xiro wuxuu ogaanayaa xaqiiqada qofkii dabanka ugu dhigay Misu isla qofkaas ayaa isku dayay inuu dusha ka saaro dilka. maskaxdiisa ayaa markiiba dib u noqonaysa wuxuuna soo xasuusanayaa gabadhii uu ku arkay saldhigga booliiska wuxuuna la xiriirayaa warbaahinta isagoo uu sheegaya in qof kale isku dayaya inuu ku eedeeyo dhammaan dilalkii dhacay wuxuuna ku andacoonayaa inuu yahay dhibane dawin loo dhigaayo. Hijo oo ku sugan garoonka diyaaradaha kuna sii wajahan London ayaa telefishinka ka arkaysa warbixintaas markaas ayay fahmaysaa in qorsheedii uusan weli dhammaanin Kimna uu weli xor yahay. waxayna joojinaysaa safarkeedii waxayna dib ugu laabanaysaa magaalada. isla waqtigaasna warbixinta baaritaanka Misu ayaa booliisku u sheegaysa inaysan jirin wax furo ama DNA si toos ah u caddeynaya Kim dilkii Misu taasoo micnaheedu tahay in kiiskii ay ku rajaynayeen inuu burburay. Kim oo hadda baxsata wuxuu bilaabayaa inuu internetka ka baaro dilalkii dhawaan dhacay wuxuuna helayaa war ku saabsan geeridii ninkii ay qabtay hooyada Hijo. markaasna wuxuu isku xirayaa dhammaan dhacdooyinka ugu dambeynna wuxuu ogaanayaa in Hijo tahay gabadhii dambi baaraha uu dilay 15 sano ka hor iyo sababta ay u daba socotay iyo in tani aysan ahayn cadaalad raadis ee ay tahay argoosi muddo 15 sano la qorsheynayay. waxyar kadibna shaqaalaha goobta internetka ayaa aqoonsanaya Kim waxayna wacayaan booliiska. Yang iyo kooxdiisa ayaa si degdeg ah u imaanaya laakiin mar kale Kim uu baxsanaya wuxuuna dhaawacayaa askari kadibna wuxuu xadayaa gaariga booliiska ee Yang. booliiska magaalada oo dhan ayaa lagu wargelinayaa baxsashadiisa laakiin Kim wuxuu sameynayaa tallaabo aan cidna filaynin. halkii uu magaalada ka carari lahaa wuxuu gaariga booliiska u kaxeynayaa saldhigga dhexe ee booliiska meesha ugu ammaanka badan magaalada. isagoo isku ekaysiiyey sarkaal cusub ayuu gudaha u galayaa si degan. Hijo oo weli ka shaqeynaya saldhigga booliiska ayaa ogaanaysa inuu gudaha joogo laakiin qaylo ma bixinayso. Kimna gudaha saldhigga wuxuu si xariifnimo leh uga helaya
wacayaa mid ka mid ah saraakiisha ciwaanka guriga Hijo. Markuu helo xogta uu u baahan yahay si degan ayuu ugu baxayaa saldhigga. Dhanka kale Hijo waxay gurigeeda ku noqonaysaa iyadoo isku diyaarinaysa waxa soo socda. Waxay soo iibsanaysaa xarig cusub ee iyada lagu hago kadibna waxay fariisanaysaa gurigeeda iyadoo sugaysa. Waxayna ogtahay in Kim imaan doono. Markii booliisku ogaadaan in Kim helay ciwaanka Hijo, Yang iyo kooxdiisa waxay si degdeg ah u soo aadayaan gurigeeda. Laakiin mar kale way ka daahayaan. Kimna halkaas ayuu gaarayaa. Markii uu guriga kusoo dhawaadan Hijo ayaa soo weeraraysa iyadoo mindi sidata. Labadoodana dagaal adag ayaa dhex maraya, mid walbana dhaawac ayuu gaarsiinayaa kan kale. Inta ay dagaalamayaan Kim wuxuu ku dhahayaa waxay ahayd inaad hoteelka igu disho markii aad fursadda igu heshay. Hijona waxay ugu jawaabaysaa waxaad dishay aabbahe, maantana wax walba way dhammaanayaan. Kadibna way ka cararaysaa, Kimna wuu dabagalayaa. Ugu dambeynna waxay soo gaarayaan jardiin carruurta ku ciyaaraan. Hijona waxay istaagaysaa meel ay ku yaalaan dhulmooyin. Kimna markuu soo gaaro wuxuu weydiinayaa haddii ay iyadu dishay ninkii qabay hooyadeed. Hijona si degan ayuu khirinaysaa waxayna u sheegaysaa in labadooduba yihiin gacan ku dhiiglayaal, sababtan inay tahay in dhammaan waxaas ay isaga ka bilaabmeen. Kimna ma fahmayo waxay ula jeedo, laakiin ilbiriqsiga xiga Hijo waxay iska siibaysaa maradii qoorteeda saarneed. waxayna ku tuuraysaa Kim iyadoo u sheegaysa inuu siiyo adeerkeed Yang. Markaas ayay runto argagaxa leh soo baxaysaa. xariggii eeyda ayay qoorteeda ku xirtay, dhinaca kalena waxay ku xirtay lulmadii ay dul taagneed. ka hor inta Kim uusan waxba samaynin, Hijo waxay iska tuuraysaa meesha. ilbiriqsiyo gudoodna way dhimanaysaa. Kimna waxa uu istaagayaa isagoo naxsan. isla waqtigaasna Yang iyo booliiska ayaa goobta soo gaaraya, waxayna arkayaan Kim oo taagan argagaarka meydka Hijo, gacantana ku haya maradii ay siisay. waxayna u muuqataa sidii inuu isagu dilay. tanina waxay ahayd tilaabadii ugu dambeysay ee qorshaha Hijo. iyadoo nafteeda u huraysa ayay hubisay in Kim lagu xukumo dembi aanu ka baxsan karin. muddo kadibna maxkamaddu waxay Kim ku helaysaa dembi. ugu dambeyna ninkii ka baxsaday ciqaabta 15 sano ka hor waxaa lagu xukumayaa dil. dhammaadka filimkan Yang waxa uu booqanayaa gurigii Hijo. derbiyadana waxaa ku dhagnaa qorshayaal ay 15 sano u diyaarinaysay Kim. filimkeenan waxa uu ku dhamaanayaa adigoo muuqaalka like saaray, youtube-keenana ku soo biiray inuu muuqaalkan iyo muuqaalada xigo. maca salaama.